waxaa mahad leh allaha nimcada aanino miine waxaa mahad leh martideennan iyo sharafyo maamuse waxaa mahad leh martideennan iyo sharafyo maamuse waxaa mahad leh maamulkeennan iyo macallimiintiise allah deeqladiin baa mulkile daraja sheekh baa leh allah amar le aga joogisiyo eray wanaag baa leh jannaa udug le rabbaa idan le urur qiyaama leh waxaa arag le ardaydeennan iyo aya wanaagiye dugsi wacan fariinuu diraan doolku qorayaye dugsi wacan fariinuu diraan doodku qorayaye haddaan dulucda sheegana cilma deeqda ugu roone manhajkooda wiinanbaa aqoon lagu diyaarshaye macallimiin dadaasha cilmiga lagu daryeelaye maamul wada dulmeera cilmiga lagu daryeelaye waa ku diyaar buu dhambaal kugu soo diraaye waalidow haddaan ku dulmaro hadal danteeniya daa'imada diinta yaraan lagu durduraye daa'imada diinta yaraan lagu durduraye waa lagu dadaalaa intaanu diiday ka odhane waa lagu dadaalaa kusoo dhawaada barnaamijkaana oo aynu ku eegi doono heerka aqooneed ee madarasada al-xufaad muuqaalka aad arkaysaa waa muuqaalka guud ee madarasada al-xufaad madarasada al-xufaad waxa ay ku taallaa meel ku habboon waxbarashada waxaana ay ka kooban tahay dhismayaal ku habboon dhinaca waxbarashada gabdhaha iyo wiilashaba muuqaalka aad arkaysaa waa basaska ardayda soo qaadaya isla marhaantaasina marka ay dhammaystaan waxbarashadooda dib u celinaya uguna celinaya guryahoodii iyo goobihii ay ka yimaadeen dugsiga al-xufaad waxa uu leeyahay barxad weyn oo ku habboon in ardayda ay ku ciyaaraan kuna tababartaan waxaa hagaa oo ciyaaraha ku rabeeya isla marhaantaasina ku dhisa jir ahaan iyo caqli ahaanba barayaasha madarasada al-xufaad sawirka aad arkaysaan waa ardaydii oo ciyaaraysa gaardii iyo qoobka ciyaaro kala duwan oo ay hagayaan barayaasha dugsiga al-xufaad halkani waa ofiska macallimiinta wakhtiga nasashada ay isugu yimaadaan kuna diyaarsadaan duruusta ay bixinayaan waxay madarasadan al-xufaad ay ku dadaashaa inay soo saarto arday ka dhisan akhlaaqiyan iyo diin ahaanba iyadoo aanay ka maqnayn maadooyin aad u tiro badan oo ardaydaasi ay dhigtaan madarasada al-xufaad oo la asaasay dhammaadkii sanadkii 2004 ayaa waxa ay qaaday tallaabooyin horumar leh dugsigani waxa uu muhiimadda uu siiyaa in uu ilmaha uu wax ku baro luqadda afka carabiga ilaa iyo 14 jirkiisa muuqaalkanina waa barayaasha madarasada al-xufaad oo ku guda jira bixinta duruusta ay ardayda ay siinayaan macallimiintaasi oo ah aqoon-yahano heer jaamacadeeda oo lagu xushay aqoontooda iyo dhaqankooda waa kan maamulaha guud oo ka waramaya waxyaabaha aqoon ahaan iyo habka ay wax u dhigaan ay kaga duwan yihiin madaariska kale madarasada al-xufaad waxa la asaasay dhammaadkii sanadkii 2004 ilaa muddadaasi waxay mar walba qaadaysay sanad kasta tallaabo ay ku doonayso inay ku taxaqiijiso in uu ka soo baxo madrasada marxaladda asaasiga ee cidaadiga iyo toosaba arday qiimo leh tarbiyad wanaagsan aqoon wanaagsan leh la tartami kara
faciisa kale ee madrasadaha kala dhigta runtii haddii aynu soo qaadano madrasat alxufaad wakhtigan xaadirka manhajka aynu isticmaalno oo runtii wixii karaanka iyaga ah dadaal fara badan aanu u galnay inuu noqdo manhaj dhammaystiran oo ka turjumaya marxaladda da-eed iyo aqooneed ee ardayga uu marayo waxaynu dhigannaa oo ardaydu ay dhigataa waa 10 maadadood weeye 10kaa maadadood qaarkood waa maadooyin asaasiya oo aanu shardi uga dhigno ardayga gelaya inuu ilmaam u leeyahay waxna ka garanayo kuwa waxa ugu asaasisan waa qur'aanka kariimka weeye sida ka cad magaca waxa madrasada alxufaad waxay asaas u ah qur'aanka kariimka inuu ardaygu wax ka yaqaano oo wax ka xifdisan yahay inta marka laga gudbo waxaanu asaas uga dhignaa muwaadka cilmiga ee ah ugu horeyso maadada riyaadiyaadka iyo maadada luqadda ingiriisiga iyo luqadda carabiga furuucdeeda kala duwan runtii dhammaan muwaadkaasi oo dhami waa muwaad aanu siino ahmiyad gaara ardaygu maado kasta oo maadooyinka aan idin tilmaamay waxa uu ka qaataa 6 xiisadood weegii marka lagu dhufto bishii 4 weeg waxa uu qaataa 24 xiisadood marka uu 10 bilood oo aan wax dhigano wuxuu qaataa 240 xiisadood maado kasta oo maadooyinkaasa runtii waxa aad moodaa in ay dabooli karayso baahida ardaygu uu qabo ama uu ku dhammaystiri karo manhajkeena oo kooban awgeed ardayga marxaladan asaasiga runtii dadka aqoonta u leh manhajku waxa ay tilmaamaan inaanu qaadi karin maadooyin fara badan oo ka badan 12 maado ee aynu dhigno waayo waxa ardayga ku dhacaya tashatud ama fahamkiisii tarkiiskii uu bacda almawaad saari lahaa way caalamka aynu maanta ku noolahay waa caalam takhasusaat caalam uu qofku qaato maado yar oo kooban dabadeetna halkii uu fahamkiisu fogaan lahaa oo 10 maado dhigan lahaa waxa uu dhiganayaa oo ku takhasusaya marxaladaha kala duwan si uu uga jibo keeno maado kamida maadooyinkaasi oo uu noqonaysa mid uu manfaceeda uga turjumo deegaanka uu ku nool yahay dalkiisa iyo caalamka intiisa kaleba runtii manhajkeenu aynu dhigno kuma sii dayno oo keliya macalinka iyo ardayga waxaa jira kaabayaal waxbarasho oo had iyo jeer ardaygu u baahan yahay kaabayaasha waxbarasho waxaa ka mid ah imtixaan billaha ay waalidiinta intooda faraha badani ka dheregsan yihiin oo ah in aynu nashaad gelino ardaygeena madrasada dhigta taasina waxay keentaa inaan durub ugu xisaabtano inaanu qiimayno bil kastaba galaas kasta oo ka mid ah galaasyada fasalada ay macallimiintu dhigayaan dhammaan mawaadka oo dhanba alxamdulilah rabbil caalamiin sida loogu hagar baxo ardayda alxufaada loona dhiso aqoontooda diini iyo maadiba waxa ay ka muuqanaysaa sida quruxda leh ee ay ugu khudbadaynayaan afafka ay barteen ama ay u akhriyaan quraanka kariimka gabdho iyo wiilalba min ash-shaytaanir rajiim وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الحفل الكريم أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام فشكرا لله أولا وأخيرا وطوبى لمن أسس مدرسة الحفاظ وهنيئا لمدير مدرسة الحفاظ ومرحبا لمدرس مدرسة الحفاظ وأهلا وسهلا لطلبة مدرسة الحفاظ وتحية مع تحيات على الضيوف الكرام. أما بعد إنني أود في هذا المقام الكريم أن أتقدم بشكر الجزيل والثناء الموفور لإدارة مدرسة الحفاظ الإسلامية على ما قدموه لنا من رعاية الكريمة ونصائح الغالية
وما هيئوا لنا من أسباب يسرت لنا طلب العلم والمعرفة. كما لا يفوتني أن أشكر لمعلمي الأفاضل والأساتذة الكرام الذين بذلوا ما في وسعهم وطاقتهم في تعليمنا وتربيتنا حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التي رسمت الابتسامة العريضة في وجوهنا وغمرت السعادة والبهجة في نفوسنا، فلهم منا كل التقدير والاحترام. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشكر سعيهم ويغفر ذنبهم. ولا أنسى أن أشكر لأولياء أمورنا الذين بذلوا غاية جهدهم لنصل إلى هذه المرحلة التي نقتطف اليوم معا ثمارها. ولا يفوتني في هذا المقام أن وجه الفدح والسرور أن أنتهز من هذه الفرصة لألقي على أسماعكم كلمة قصيرة أستهلها بالشكر الجزيل على القائمين بمدرسة الحفاظ الإعدادية من مدير ومعلمين وكل من ساهم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي الطلبة بموفور الشكر وجزيل الثناء لإدارة المدرسة الحفاظ على هذا التكريم والتشريف. فنحن أبناءكم الطلبة نقف أمامكم معبرين عما يجول بداخلنا من فرحة عظيمة وسعادة عميقة عارمة، مقرين ومعترفين بمن كان لهم الفضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى. بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني. بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني. بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني. كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان ديننا الحق وذاك الفتح. Praise is to Allah, the Almighty Lord of the heavens and earth and everything within it, the provider for a mankind who bonds cannot be a compulsory number. I would like to thank the head teachers, parents, students, and special guests which have taken part in this. I would like to express my gratitude to Allah. After that, my teacher and everyone who participated this graduated part. So my very special congratulations to my respectable admirable teachers and the administration of this school, Al-Wufad Primary School, which we are graduated now. Secondly, I am thanking the honorable guests who are sitting here in front of me. As you know, this very well managed part is for graduation students in class 8 in Al-Wufad Primary School. So my speech today to our هنا مدرسة الحفاظ الإعدادية لنقدم إليكم برنامجا يتكون من القرآن الكريم وحديث النبوي الشريف وكلمة تتكلم عن الأحوال الأربعة التي نمر بها، وبعد الأسئلة سنسألكم إن شاء الله. وسنفتتح هذا البرنامج بآيات رب العالمين وستقرأ لنا أختنا الفاضلة هدى. تفضلي وأنت مشكورة. بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المتصف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال الذي علم ما كان وما يكون وما هو كائن في الحال والمآل. حكم بالموت على كل ذي روح من مخلوقاته وساوى فيه بين الغني والفقير والشريف والضعيف والعاصي والمضيع من سكان أرضه وسماواته، فهو الذي عدل بالآخرة بين برياته. قبض روح هذا بعدما عمر الدنيا وسهرف البناء وتوضنها وليست لحي وضنا، وقبض روح الآخر الذي اجتهد في إصلاح آخرته واتخذ صالح الأعمال فيها سفنا، فشتان ما بين خروج الروح من الجسدين، هذه لها السعادة والهنا
وتلك لها الخيبة والشقاء. هذه ترفع في رياض الجنة وتاوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وتلك محبوسة تعذب في نار الجحيم. وقد أقدرت حكمة الله تعالى أن ينقل النفوس في الخلق في 4 دور، كل دار أعظم من التي قبلها. الدار الأولى بدن الأم، وذلك الحصر والضيق والظلمات الثلاثة. والدار الثانية دارنا هذه التي ألفناها. waxaa kale uu si weyn u ammaanay heerka aqooneed ee madrasadda al-xufaada mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada oo ay ka mid yihiin madaxa imtixaanaadka ee wasaaradda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda, mas-uuliyiinta sarsare ee dalka oo ay ka mid yihiin gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka, culimada dalka iyo aqoon-yahan tiro badan ayaa ka markhaati kacay heerka aqooneed ee madrasadda al-xufaad. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد. دمان من تشرفت هالك سكوتمي مع مامولك سكولك والدينتا أرضيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحانيقا شرف وينية إن نكرسو غيب قالوا حفلة آد سيدا في عن لوسو أقاسمي بالعدلة مركا لبادنا وحان مهد بلارن وجيدنا يا maamulka waxa marka mucjiso noqotay xafiiskaygu la yaabay madrasadan al-xufaad yani qaabka ay imtixaanka ula dhigalaysay yani qaabad moodo inuu si heer qaran yahay runtii oo fadhiga haday noqoto iyo qaabka ay soo diyaariyeen koobiyaan ka qaadnay imtixaanka qaabka ay u diyaariyeen runtii iyo waliba aan qaabka fadhiga ardayda imtixaanka fasalka 8aad dhalinyarta maanta ka qalin jabinaysa madaaristan al-xufaad fasalkiisa 8aad dhammaantood waan hambalyeynaa, waxaan ilaahay uga baryaynaa in si wanaagsan bay u soo dhamaysteen qaybihii hore, qaybaha dambe hadhayna dugsiga sare iyo jaamacadahaba in ilaahay u fudaydiyo oo ilaahay u sahlo. salaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasallam. bacd, anagu runtii weli waxaanu ku jiraa dareenkii ahaa ilmaha ilaa iyo intuu ka gaadhay 14 jir in aan luqada ingiriisida ma aha luqa ahaan ka hadli maayo, laakiin luqo aasaas ah waxbarashadiisa runtii aan lagula degdegin. dareenkii noocaas ah runtii waxaad moodaa inuu jawaabo kala duwan ay ka soo baxayaan dadkii nagu dhiirigelisa iyo in aan dareenkaan nagula socon labadaba runtii waanu aragnaa ama waanu la kulanaa. weli laakiin aw kamaanaan qancin fikradaasi. waxaa jirta in madaaris badan oo ahliyihi ay iminka manhajkoodii bedeleen oo ay ingiriisi ka dhigeen, xayeysiisyada iyo banaanada iyo fagaarayaasha runtii ay keenaan. farada runtii anagu weli qanaacadeeda maanaan qaadan. waxaanu isleenahay malaha weli baahidii loo qabay luqada carabiga ah ka luqada daraasi ama luqada waxbarasho asaasiga baahidii loogu qabay runtii weli way taagan tahay. waa laga yaabaa wax weyn af ingiriiska loo doonaya inay tahay cilmiga iminka ingiriisiga aad ugu qoran waa yani ugu fiican loo cabiro. arrinta kale si raacdan waxa weeyaan hay-adaha iyo shaqada fiican baa lagu helaa, hay-adaha af ingiriisiga ku hadlo shaqada fiican baa lagu helaa. waxaan isleeyahay wixii shaqo ku saabsan arsaaqadii ilaahay bay xaqiisa ku maqan tahay. وما من دابة في الأرض إلا على رزقها. أرسقت إلهي بها سبحانه وتعالى. مركا وما بهنا في إنجليزي في عربي في صومالي بدنا هسي شيء لغة عربية واحد نجحنا دين تاني واحد كحنا فهم في القرآن كا واللغة إنه كنا دل الله ينجيه كهذا دونه بركنت أنا قولي ونكون جينا قلب كاس هسي شيء واحد دونه إنه بحنه أما صوب عندنا برنامج كابدأ واللغة الإنجليزية هذه الله وحي سقوا أنا مدي دليلي كونترنكم مني هنا inaan soo dhigno qorshe aanu ubadkii af ingiriisigii kaga dhisayno annagu aan af carabigii ka tagaynin, tarbiyadii asaasiga ahayd ee islaamiga ahaydna aan ka tagaynin. qorshaha aanu ku talagalnay ama maamulka madrasada xufaad meeshan iga muuqda wax aad iyo aad loogu farxo. juhuud in doora la soo waday oo lagu soo dadaalay oo markaa midhaheedii la guranayo. marka runtii wax lagu farxaa weeyaan haddii ay walaalaheen mas-uulka ka madrasad xufaad ay ku soo dadaaleen inay midhaha caynkan oo kala soo saaraan oo midhihii inoo soo baxeen oo iminka mataqaanaa anigoo waalidiinta ka mid ah aynu maanta alxamdulilah midhihii oo inoo bislaaday aynu guranayno. waa wax ilaahay lagu mahadiyo subxaanahu wa tacaala. alxamdulilah. waxaa iyaguna muujiyey dareenkooda farxadeed waalidiinta ay awlaadoodu ay wax ka bartaan madrasadda al-xufaad. waxaan aad iyo aad u mahadnaqaynaa anagoo ku hadlaya afka waalidiinta
maamulka iyo macallimiinta madrasada Daarul Xufaad oo runtii meel ay khayrkood ku dhaafeen dadkii lagu soo ababiyey kitaabka quraanka oo had iyo jeer waxa dhici jirtay ninka quraanka u go'aa inaanu gaari jirin da'da ay isku filka yihiin laakiin madrasadana waxay noqotay namuudij ka duwan oo u suura geliyay waalidiintii alxamdulillah in ilmahoodii quraankana xifdiyo khayrkiina aanu ka harin markay noqoto tan dunyawiga iyo waxbarashadan kale ee asaasiga saadaradeed mahad ballaaran baan idin soo jeedinaynaa waxaanu leenahay dadaalka halka ka sii wada anaguna محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم والدينتا ayaan kamid ahay runtii عيال كل عيال كي قارب هير waxaan ilaa 5 sano 6 sano oo xiriir ciyaal baa ka dhiganayay kuwa jaamacadaha dibadda dhigtay ee halka ka baxay bay qariigu jiraan taas waa tusaale taajkii uu soo saaray bay maraka tahay alxamdulillah rabbil caalamiin aad iyo aad baan uga mahad celinayaa juhdiga weyn ee ay macallimiinta iskuulkan wada ay sameeyeen ilaahay fadligiisana waa taa midhaheedii aan ka hadlayo heer ilaahay qaar jaamacadaha dhigta ay ka baxeen alxamdulillah rabbil caalamiin maamulkii madrasada Daarul Xufaad waxaan u soo jeedinayaa runtii mahad aan la soo koobi karin waayo midha aynu indheheena ku aragnay baynu tuseen jazaahumullahu khayra kullay binaadamka abaal badan ma gudo laakiin insha Allah waxaan leeyahay miisaankooda xasanaadka aakhira Ilaahay ugu biiriyo intaasaan ku soo koobi lahaa wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh sanad kasta ardayda ku guuleysata kaalmaha hore ee imtixaanaadka iyo dhinaca akhlaaqda waxaa maamulka madrasada Al-Xufaad uu guddoonsiyaa abaalmarino si ay ugu dhiirigeliyaan in ay sii libilaabaan aqoontooda iyo akhlaaqiyadkooda waxaa sanadkan ay maamulka madrasada Al-Xufaad ay soo kordhiyeen in ay keenaan macallimiin wax ku soo bartay muddo dheerna soo joogay waddanka Ingiriiska kuwaasi oo ay ugu talagaleen in ay sida ugu fudud uguna saxsan ay ugu dhigaan luqadda afka Ingiriisiga ardayda Al-Xufaad iyagoo raacaya manhaj casri ah oo u sahlaya inuu ardaygu si dhib yar ugu barto luqadda Ingiriisiga madrasada Al-Xufaad waxa ay ka kooban tahay dugsi hoose iyo mid dhexe waxaana ay tixgelin gaar ah ay siisaa ardayda quraanka kariimka ah soo xafiday ee aan helin waxbarashada aasaasiga ah ee maadiga iyadoo madrasadu geysa fasal ku haboon daadiisa suuragal looga dhigtaa inuu la qabsan karo fasalkaasi madrasada Al-Xufaad muddadii ay jirtay waxa ka aflaxay kana qalin jabiyay 6 dufcadood oo gabdho iyo wiilal bale madrasada Al-Xufaad waxa ay ku taalaa xaafadda Ganada waxaana dhinaca waqooyi galbeed ay ka xigtaa saldhigga Ibraahim Koodbuur intaas daawadayaal waxa aynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu ku eegaynay heerka aqooneed ee madrasada Al-Xufaad dib intaanu kulmi doonana waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi